cadaadiska bulshada, amni darrada, mushaariyarida iyo fursadaha shaqada oo kooban ayaa ka mid ah caqabadaha ay la kulmaan gabdho badan oo ka shaqeeya saxaafadda Soomaaliya. Caqabadahan ayaa mararka qaar sabab u noqda in gabdho badan ay ka baxaan mihnadii ay jeclaayeen. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa sababaha ku kalifa qaar ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta in ay ka tagaan mihnadooda. adoona ku lugsiinin meel dhaxgale ragga dhaxgale barnaamijyaas oo qabaneen adoo baahana wax soo duurkii faqdhe haddana ku markaysid dhibaato miran waa ani warbaahinta saa darteed waaba nacaba ka cararabo gumeyskas marka arkay dhibaatada ka jirto frontier-ku uu tumaayo gabarnimo lagu ixtiraamayo shaqada soo gal adoo ku qaadanayna dan lagu xisaabtama maxaa soo daaday maxaa u sameysay muuqaalkan qalad oo ahay qaabka inaa wareed u sameysay ma ahayn ma dhibaatooyin badan kala kulmaan khibrada gabadhani ma ahan oo kaliya mid iyada u gaar ah balse gabdho badan ayaa la kulma duruufo la mid ah taas oo saameysa shaqadooda iyo mustaqbalkooda xirfadeed saas ay tahay wali ma kaliya jaban inaa markale ku laabto anoo xornimo inaa ku shaqeeyo rabaa waliba ani ahaan inaa meel sameysto oo soo saara rabaa warbaahin dambe mar waa kaniya warbaahinta dambe mid ka mid ah gabdhaha u oleeya xuquuqda haweenka saxafiyiinta ayaa sheegtay in loo baahan yahay deegaan shaqo oo ammaan ah tababaro joogto ah iyo taageero dheeraad ah si gabdhaha ay ugu nagaadaan xirfadooda saxaafadeed. marka waa muhiim gabdhuhu haddii dhibaato ay ku dhacdo inay soo report gareeyaan because anaga shaqadeena waa in advocacy u qariimid aan u sameyno gabdhaha saxafiyiinta iyo in tababaro xirfadooda sare u qaadayo inaan oga shaqeyno waxa aan sameynaba inta badan intaas waaye waana qayb ka mid ah howlaha aan u taaganahay kuna garab taaganahay gabdhaha saxafiyiinta meel kastoo ay joogaan. inkastoo ay caqabadahaasi jiraan haddana waxaa jira gabdho badan oo go'aansaday inay sii wataan shaqada saxaafadda si ay cod ugu noqdaan bulshada. fursadaha iyo taageerada ay helaan gaar ahaan goobaha dhiirigeliya dumarka sida Bilan Media ayaa ka caawiya inay sii wataan safarkooda xirfadeed. anigu lafteydu waxaan ka mid ahay gabdhaha la kulmay caqabadahaas balse fursad tababar oo aan ka helay Bilan Media oo ah goob taageerta horumarka iyo badqabka gabdhaha saxafiyiinta ah ayaa iga saaciday inaan dib ugu soo noqdo mihnada saxaafadda. taageerida gabdhaha saxafiyiinta waxay gacan ka geysan kartaa dhisidda warbaahin xoogan oo ka turjunta codka bulshada oo dhan. Faatime Axmed, Bilan Media, magaalada Muqdisho.